Badhasaabka gobolka Togdheer mudane Xamsan Maxamed Cabdi oo ay weerinayaan taliye qaybaadka gobolka Togdheer Cabdi Xayd iyo sidoo kale isuduwayaasha kala duwan ee laamaha dawladda gobolka Togdheer waftigani oo kormeer ku mareeyay deegaanada qoryaale iyo sidoo kale deegaanka warcibraan oo ka tirsan deegaanada bari ee magaalada Burco. Badhasaabka iyo waftiga uu hogaaminayo ayaa u kurgalay xaaladda deegaanadaasi intaasi kadib waxa uu kulan gaargaar ah oo xog waraysi la qaatay mas'uuliyiinta iyo cuqaasha kala duwan ee deegaanadaasi. Ugu horreynba waxa halkaasi ka hadlay dadka ku dhaqan deegaanka qoryaale oo ka warbixiyay xaaladda deegaankaasi waxaana uu dhignaa hadalku waxaan soo dhaweynaynaa Badhasaabka iyo waftiga uu hogaaminayo naga soo booqday gobolka Togdheer. Badhasaabka waxaan leenahay soo dhawow waftiga la socotana waxaan leenahay soo dhawaada magaaladu waa magaaladiina waa garanaysaan. Badhasaabku ma aha nin meel kale naga yimi Badhasaab aydan garanayno idin garanaynin baa muddo idin bartay maanta Badhasaab waftigaasoo u socda kormeer hawlgala oo ay degmooyinka miyiga ay ku kormeerayaan. waxaanu taaganay goobtii xarunta dawladda hoose ee degmada Qoryaale aad iyo aad baanu idin soo dhaweynaynaa. degmadu waa nabad, xoga abaara ayaa yara jirta oo dadku aad iyo aad bay hadda xilligan u jilcisan yihiin. ilaahay baynu baryaynaa inuu ilaahay raxmadiisa inoo shubo. wixii warbixinana ee kalena xafiiska gudihiisa aan wada fadhiisanayna ku kala qaadanaynaa. sidoo kale waftiga u horkacay gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa waxa uu cagad dhigtay deegaanka warcibraan oo kamid ah deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer. haddaba dadweynaha ku dhaqan deegaanka warcibraan ayaa ka warbixiyay xaaladda deegaanadaasi waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan. degmadan warcibraan waxay tahay degmooyinka aad iyo aad markaad eegto xagga waxqabadka iyo deegaankaba aad uga howlgalay oo ilaashaday deegaankoodii iyo dhultoodii. geedka aad aragtaan waa ka mustaqbalkiina ah. dib xoolo dhaqatu ma ahaanaysa xooluhuna ma dabar go'ayaan haddii ilaahay 2-3 xilli oo roob fiican helo halkoodii bay ku noqonayaan. marka waa inaydaan u dhagal dhugnaan ina dhirtiina xasuuqdaan oo nolol laga doonayaan arinta laga digtoonaado. ka yimi gobolka ee uu hogaaminayo Badhasaabka gobolka Xamsan Maxamed Cabdi taliye qaybeedka xoghayaha gobolka ciidamada sharafta leh iyo agaasimayaasha marayaba waftigaas danahoodii uga yimi inay xogogaal u noqdaan dadweynahooda degmada reer warcibraan khaasatan. aad iyo aad baanu idin salaamaynaa salaan qalbi iyo laaba baanu idinku soo dhaweynaynaa dhammaan. salaan kadib sidoo kale waxa hadalkaas ka daba qaatay suduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer sidoo kale suduwaha wasaaradda deegaanka gobolka Togdheer kuwaasi oo fariin adag u diray shacabka kala duwan ee ku dhaqan deegaanadaasi. suduwaha wasaaradda caafimaadka degmada warcibraan waxay nasiib u yeelatay degmooyin kale MCH-yada inay ka mid noqoto. runtii waxay leedahay MCH aad u fiican oo aad u qurux badan. waxyaabaha haday wax ka dhiman yihiin aanu diyaar u nahay inaanu buuxino. ugu dambeyntii waxa hadalkaas ka daba qaatay taliye qaybaadka gobolka Togdheer Cabdi Xayd iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Togdheer mudane Xamsan Maxamed Cabdi oo mahad celiyay dadka ku dhaqan deegaanadaasi waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan. maanta waxaan ku degmadii ugu horeysay ayaanu nimi oo qoryaale ah waxaanaanu ma taqaanay kormeerka ugu horeeyay halkan aanu ka bilownay. كل وحي متقنا إنت على روح ويون إن درجلين شقالها بعدما الدولة دينا عصوب تهاي Badhasaabka cusub yahay in dardargelin ayuu daaran yahay mataqaanaa socdaalkan maanta. waxaan u soo baxnay safar aanu ku kormeerayno degmooyinka gobolku ka kooban yahay oo aanu maanta ka bilownay degmada Qoryaale. safarkan oo daaran in aanu u kuurgallo oo indhahayaga ku soo aragno xaaladaha dhabta ah ee ka jira dhammaan degmooyinka gobolka Togdheer waqti xaadirkan aan ku jirno. waxa ay ka dhawaajiyeen annaguna indhahayaga aanu ka arkaynaa runtii marka 3 meelood loo qaybiyo 2 meelood ayaa waxay ka jirtaa abaar iyo biyo la'aan. wixii kale ee duruufaha ee ku xeeran degmada dhinaca shaqaalaha caafimaadka biyaha waxbarashada waxa warbixin dhameystiran laga siiyay gudoomiyaha degmada iyo maaragtay madaxdiisa kale ee degmada. waxaanu isugu noqon doonaa haddii Allah uu ogolaado markii aanu gobolkii ku noqono hadba sidii wax looga qaban karo. isku soo wada duubo markii uu horeysay tan iyo intii loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Togdheer uu kormeer noocan oo kala ah ku tagay deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer. Cabdiraxmaan Ciise, telefishinka caalamiga Somali Cable magaalada Burco.